Qisadii masjidka. Sheekh Ali Dandaawi Ilaahay ha u naxariistaa waxa uu ku yidhi xasuus qorkiisii Dimashq waxaa ku yaalay masjid weyn oo la yidhaahdo Jaamic Al-Tooba. Waa jaamic weyn oo barakaysan oo qurux badan. Waxaa loogu magacaabay Jaamic Al-Tooba wuxuu ku ooli jiray meel macaasida lagu sameeyo berigii hore. Kadib waxaa iibsaday mid ka mid ah boqorradii qarnigii 7 ee Hijriga. Intii uu dumiyey ayuu masjid ka dhisay. Masjidka waxaa joogi jiray sheekh ilaa 70 jir ah. Waxaa la oran jiray Sheekh Sulaym Al-Suyuudi. Dadka xaafadda degan aad bay ugu kalsoonaayeen wixii ku saabsan arrimaha diintooda iyo dunyadooda way ula noqon jireen. Sheekh waxaa la joogi jiray arday aad u dhowrsanay badan oo aanan waxba haysanin. Masjidka ayuuna ka deganaa qol. Waxaa soo maray ardaygaasi inuusan waxba cunin ilaa dhowr maalin. Wuxuu cunana ma uusan heli jirin. Ilaa maalintii u dambeysay ayuu is yiri waad dhimanaysaa. Wuxuu ku fikiray wuxuu samayn lahaa. Markaasuu wuxuu istusiyey inay u bannaan tahay inuu wax soo xado si uu dhimashada uga badbaado. Sheekh Dandaawi wuxuu leeyahay qisadani waa qiso dhab ah. Dadka ay ku dhacdayna waan garanayaa. Masjidka waxaa ku yaalay xaafado qadiimi ah. Guryuhu berigii horena way xidhiidhsanaan jireen oo dhinacay isku wada haayeen. Qofkuna wuxuu awooday inuu guri intuu fuulo uu xaafad dhan isku wada mari karo. Ardaygii masjidkii buu dhakada ka fuulay kadibna wuxuu ku dul socday xaafadihii isku dheganaa. Indhihiisu waxay ku dhaceen dumar. Kadibna wuu ka ilaaftay oo wuu ka fogaaday. Wuxuu arkay guri cidla oo ay ka soo baxayso urta karinta cuntada. Gaajadii haysay awgeed sidii birlabta oo kale ayaa dhankii guriga looga jiiday. Gurigii buu kor ka duleeliyey kadibna jikadii buu galay. Digsigii dabka saarnaa ayuu ka qaaday daboolka mise waxa karkarayaba waa baadijaan. Mid buu la soo baxay kadibna wuu qaniinay. Ma uusan awoodin inuu laqo. Aqligii iyo diintii suubnayd baa u soo noqday. Wuxuu yidhi acuudu billaah macnigu daalibul cilmi ah weliba masjidka degan ayaan guryaha dadku u dhacaya oo hadaya. Wuxuu sameeyey ayaa la weynaaday kadibna wuu istighfaarsaday. Wuu ku celiyey baadijaankii dherigii. Kadib wuxuu ku soo noqday meeshii uu ka yimid ay ahayd masjidkii. Sheekhii darsiga bixinaya buu iska ag fadhiistay isagoo aanan awoodin inuu wax maqlo waxa uu sheegayo sheekha gaajada haysay awgeed. La soco qaybta labaad.